بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. runtii maanta waxaan halkan booqasho ku imaaday xarunta agaasinka waxbarashada gobolka Banaadir oo runtii aan maamulka gobolka oo dayactir ballaaran ku sameeyay muddo 5 sano ah kadib oo runtii aad arkaysaan sida ay maanta u qurux badan tahay. waxaan rabaa inaan u mahadceliyo agaasimaha guud ee waxbarashada gobolka Banaadir agaasime Cabdiraxmaan iyo ku-xigeenadiisa iyo madax qeybayaasha iyo dhammaan shaqaalaha agaasinka waxbarashada gobolka Banaadir sida diiran ay halkan nagu soo dhaweeyeen iyo shaqada wanaagsan oo runtii xirfadda leh ay bulshada gobolka Banaadir ku dhaqan ay u hayaan. runtii maamulka gobolka Banaadir iyo dowladda hoose xamar waxbarashada ubadka ku dhaqan caasimadda iyo guud ahaan horumarinta waxbarashada waa barnaamij hortebinta koobaad u leh maamulkeena. xil weyn ayaan iska saarnay. runtii waxaa magaaladan ku yaalo 48 iskuul waxbarasho oo lacag la'aan ah oo runtii macallimiintoodana ay mushaar dowladda siiso. iskuulaadkaas oo ubadka Soomaalida ee ku dhaqan caasimadda ay si lacag la'aan wax ugu bartaan. annaga ka maamul ahaan markii ugu horeysay usbuucii hore waxaan saxiixay lacag aan u gaarayso yacni $288,000 oo aan sanad dugsiyeed kasta ugu talagalnay inay siino iskuulaadkaas running cost ahaan inay howlaha xafiiskooda ay ku maareeyaan bacdamaa dowladda ay mushaar siiso inta kale ee dowladda ay maaragtay ay kafaalo qaaday. annagana inaan ka yacni dowladda hoose ahaan intaas inaan hadda kadib sanad dugsiyeed kasto aan lacagtaas oo 300,000 ku dhawaad 300,000 ah inaan runtii aan ilaahay idinkiis aan ku taageerno ayaan u saxiixay. waana sii socon doontaa ilaahay idinkiis haddii aan yacni annaga laftirkeenna aan si dhaqaale ahaan aan kor u kacnana aan horumar gaarnana waan sii kordhi doonaa haddii la yiraahdo. ulajeedka laga leeyahayna waxaa waaye dee in ubadka Soomaaliyeed ay iskuulkaas lacag la'aan ay ku dhigtaan waalidiinta canshuur bixiyaasha ahna aan wax lacag loogu noqonin haddii la yiraahdo oo ay si rasmi ah ay wax walba ay lacag la'aan u noqdaan qaybta waxbarashada. marka waxaan rabaa inaan mar labaad aan bogaadiyo agaasinka waxbarashada oo runtii amarkii ahay in shahaadada dugsiga dhexe qaadashadeeda la fududeeyo oo marka hore 7 maalmood qaadan jirta usbuuc in ay maaragtay amarkii ahay in 24 saac gudaheed inay ku soo saaraan inuu fulay oo maanta ciddii shahaadada soo doonato agaasinka waxbarashada haddii ay timaado codsigeeda keensato in ay 24 saac gudaheed maaragtay ay ku dhaqan gashana waan ku bogaadinayaa. sidaas iyo sidoo ka wanaagsan inaad adeeg waxbarashada gobolka Banaadir aad u haysaan inaad fududeysaan oo aad adeeg hufan oo cadaalad ah oo yacni xirfadaysan oo maaragtay asaga dhan maxaan ku dhihi lahaa casri ah inaad bulshada u gudbisaan ay ku qancaan bulshada canshuur bixiyaasha ah markay soo doontaan adeegga waxbarashada. yacni inuu sidaas si fudud si walba wax walba aad u sii fududeysaan ayaan rajeynayaa oo aad hore u sii socotaan. annagana ka maamul ahaan waaxid waxaan diyaar u leenahay inaan garab ishiliho aan ula garab istaagno. ugu dambeyn waxaan rajeynayaa dee hadda waxaan ku jirnaa bishii Maarso ayaa bartamaheedii June iyo July waxaan rajeynayaa in imtixaanaadkii sanad dugsiyeedka uu bilaaban doono 2025-2026. marka de waxaan u baaqayaa marka bahda waxbarashada gobolka Banaadir inay u diyaar garoobaan imtixaankaas qaadistiisa sidii si hufan oo xirfadaysan oo loogu qaadi lahaa yacni ka horna de waxa la wixii kormeer iyo diyaar garow wanaagsan loogu diyaar garoobo ardaydan biri mataqaanaa imtixaan hufan oo cadaalad ku salaysan haddii la wax walbana loo fududeeyay biri mataqaanaa imkaaniyaadkii goobaha lagu qaadayo iyo dhammaan si ay maskaxdooda degan ay imtixaanka u galaan haddii la yiraahdo ayaan ka rajeynaya agaaska waxbarashada gobolka Banaadir. annagana ka maamul ahaan diyaar baan idin leenahay wixii arrintaas la xiriirnaa ka garab siino. waxaan rajeynayaa markaan ummadda Soomaaliyeed waxaan ugu baaqayaa ku dhaqan caasimadda magaalada bacdama ay ammaan tahay magaalada bacdama horumar ay sameysay waxaan rabnaa bulshada inay horumarto ubadka oo wax bartaa jahliga oo la dagaalamaa waa bulshada oo horumartaa. marka waxaan leeyahay iskuulka la aado waxbarasho lacag la'aanaha ayaa magaaladan ka jirto oo dowladdeena Soomaaliya ay idin fulisay heer qaran iyo heer gobol. waxaan doonaynaa markaa in
aad ka faa'iidaysataan dhowr bilo ka hor ay ahayd markaan dhowr iskuul oo gabdhaha u gaar ah iyo kuwa wiilasha iyo kuwa wiilal gabdhahaba aan xariga ka jirnay kuwana aan dhagax dhignay insha allahu tacaala kuwa kalena dariiq ayay kusii jiraan iskuullo waaweyn ayaa hadda oo laga garanayo magaaladan taariikh kula ayaa usbuucyada soo socota la dhagax dhigi doona haddii ilaah yidhaahdo marka waxaan rabnaa in la aado iskuulka inaan la arkin canug birig mataqaanaa guriga iska fadhiyo oo maaragtay wax kale ku mashquulsan oo ciyaal weere ku mashquulsan oo haddii la dariiqyada fadhiya inaan la arkin cid uu bacdamaa iskuulka lacag la-aan yahay hooyada iyo aabbaha soomaaliyeed ee ku dhaqan xamar waxaan leeyahay wiilka ama iyo gabadhaba u dir iskuulka waa ku lacag la-aan wax lagaa rabo ma lahan cashuur bixiyaa tahay ka faa'iidaysa fursaddaas ubadkana uga faa'iiday mujtamacana uga faa'iiday bulshada waxaa haddii yani ubadka wax bartaan waa bulshadii wax barataa bulsho wax baratana waa bulsho ilbax noqotaa waa bulsho horumartaa guul ayaan idin rajeynayaa bahda waxbarashada gobolka banaadir iyo shacabka ku dhaqan caasimadda iyo dhammaan ardayda iyo macallimiinta iyo maamulada iskuulaadka waxbarashada gobolka banaadir. Asalaamu calaykum waraxmatullahi taala wabarakatu.